garoonka diyaaradaha ee degmada Xudur waxaa maanta mar kale soo cagdhigatay diyaarad siday gargaar isugu jira bur bariis sokor iyo saliid oo uu ku deeqay Salaad Maxamed Mukhtaar oo ah maareeyaha garoonka diyaaradaha ee degmada Baydhabo sidoo kalena ah ganacsade Soomaaliyeed garoonka diyaaradaha ee degmada Xudur waxaa ku soo dhaweeyay oo kala wareegay raashinka gargaarka agaasimaha madaxtooyada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdullaahi Cali Watiin markii gargaarka raashinka ee diyaaradda laga dejiyay kadib waxaa saxaafadda la hadlay ugu horeen maareeyaha garoonka diyaaradaha ee degmada Baydhabo Salaad Maxamed Mukhtaar oo gargaarka raashinka ugu deeqay bulshada magaalada Xudur oo maalmihii u dambeeyay xaaladooda bani'aadanimo laga deerinayay raashinkan lixtan waaye oo iska jarta bariis ibur iyo sokor isaliidu lixtan kalena dhamanta waa insheenay baaqi shacabka iyo madaxweynaha jeediyeen aawadiyo ka sheeni sidaas daraadee hatta lixtan kalena in dhimmi hadii ilaahay rab sheeno doono sidaas daraadee sheeni wabillahi tawfiiq way wareejin doonaa maamulka agaasimaha guud ee madaxtooyada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdullaahi Cali Watiin oo deeqda raashinka ah la wareegay ayaa sidoo kale uga mahadceliyay ganacsadahan sida uu ugu tabarucay bulshada gobolka Bokool inuu gargaar la soo gaaro horay ayaa waxaa degmada Xudur ee xarunta gobolka Bokool uga soo degay ilaa 5 duulimaad kuwaasi oo siday gargaar bani'aadanimo oo lagu talagalay bulshada gobolka Bokool raashin lixtan ay ku luureegnayeen maareeyaha airportka magaalada Baydhabo isla markaasna ballan qaaday inuu lixtan kale may buu oo ka dar doono taas markay soo sameeyay buu in ganacsada Koonfur Galbeed yamay buu diyaarinta inuu ka jawaabo may buu baaqi madaxweynaha Koonfur Galbeed uu baaqi inuu muddo buu go'doon Soomaaliya raayis in jawaab degdeg may buu la hadeersi iyo may buu ka jawaab eedeedan kama hadnagaan totan may ka jawaab may raayis milkiilaha diyaaradda daruuro Cabdinuur oo ismay buu raayis gargaar soo kale may buu inshaani iyo la alaalanka may buu oo dowladda federaalka oo may buu raayis gargaar soo kale weejid iyo meel kale jeeyeen may raayis eedeedan kama hadnagaan marka maareeyaha airportka lixtan may buu hadda kala wareegni lixtan kale insha Allah may ballan qaaday inuu may buu sheeno door may buu ya ballan qaaday dabcan dad masaakiin may buu ya waran taraas in dadka gudaasha may buu is aawi koran is kaalmay koran in markaas may buu hay'ad lan qayl dhaaway marka may la faahin dadka ganacsada ama daabshir haatoy ama may buu ganacsada kala haadeen in lan ala may buu lanki may buu hada umudo koran inuu wali ku kooyay dadka deersimay buu ya muhiim ah haatoy Xudur haatoy wajid haatoy Elberd haatoy ma raayis magaalooyinka Dinsoor qasar dheer kulsha may buu soo kalmay buu ya insha Allah lan ka baahni mar qof dadka wal deersmay buu adduunyo akhir may buu ajir ilaahay may buu ka si walaalkan salaad jeelis may buu iidan kama hadnagaan suus may baaqan ka jawaabi waan raashinka may buu insha Allah ku wareegni unuuna ka madaxtooyaha may ku wareejin maamulka gudoomiyaha hoggaanka maamulka maariid gobolka Bokool yamay buu ya ku wareejana raashin kormay buu haya insha Allah la kabiira dawladda insha Allah maamulka may ku wargeliyaas may buu in raashinkan deersada dadka tabar doornay oo la ka targalay in la deersmay buu insha Allah ya ka rajaan insha Allah